شافي انت اللي بيك الشيء تبلغ ضرب هرتين صوت ديارين دوما يدينك ان شاء الله وحن اللاوي الله واعلمه عبد الشافي جزاه الله خير وانك لسي جامعه بريق افريكا ددك نادرك سو نادرك من غير سوماليا ددك دفكا بالله بس وانك لبا جامعه بريق افريكا بدونك بلدسي ان شاء الله وانك كواد بورك جامعه بريق افريكا وبلدسي مركا نقالي الرئيستان الله يدين بركة السلام عليكم دوسيو دومي جامعة بريق افريكا عبد الشافي احمد علي شهادة الشرف أنا دومي بورك جامعة بريق افريكا أنا قدرين تأنقوها إنه دور كسو قاطي hormarinta jaamacadda laba baan guddoonsiin shahada sharaf iyo bilad labadaasaan guddoonsiina insha allahu tacaala شهادة شرف مقامي الله وبعد لما ويدي السلام يا مامولك سكولك كيسه وماركتي لو حسوسان دونه الله اكبر بيه الله أكبر الله اكبر حفلتي وانت كيرو يا اخوانتي ان وحلو ضربوا دليل كنسري اي سعينا او شاسي مامل كحينكا المعلمين تي مامل كنت كلا ardayda gabdhay wiilalba aad baan idin salaamaya aad baan ugu faraxsanahay maanta inaanu idin nimaano soo sheegay anagana waxayna gelinaysaa runtii hididiilo dadkii wax baranaya dhalinyaradii meelaha qaarkood waad qiyaasi kartaan sawirka laga haysto Soomaaliya magaalooyinkuna sida ay uga kala fog yihiin caasimadaha sawirka laga sikalays anigu isma lahayn boohoodle horumarka ay ku tilaabsatay baa jiray isma lahayn waa imaan jiray laakiin kuma raagi jiro wax yar baan joogi jiray ka tagi jiray hadda jaamacadihii baan muddo joogay week mar hore aan fogeyn hadda week baan ku sii dhawahay waxaan ogaaday jaamacadihii mustawaha macaahidii iskuuladii goobaha caafimaadka wax badan baan soo booqanay arrintaasi wax badan masaajidii runtii waxay igu samaysay isbedel fara badan oo ah meeshan inay leedahay mustaqbal aad iyo aad u qiimo badan wajaclaan lahaa inaad ogaataan magaaladan inay mustaqbal leedahay wajaclaan lahaa inaad ku kalsoonaataan oo laga yaabo inaad isleediin waxba idinka maqan sax waxba idinka maqan laakiin wax badan baad haysataan waxa haddii la hagaajiyo waxaan filayaa in wax badan aad maaragtay soo hoyn doontaan waa horumar weyn aqoonta diinta maanta meesha ay boohadle ka marayso aad iyo aad bay runtii ii saamaysay aqoonta kale meesha ay marayso boohadle maanta jaamacada lagaga baxayo oo master degree lagaga bixi doono sanad kadib shay sahlan ma marka baad waxbarashada iskuullada sare runtii in la xoojiyo way kaysna waa ka sheegay shirka jaamacadda waa in la xoojiyo sababtoo haddaan iskuullada hoose dhexe iyo sare la xoojin jaamacadda waxba tari mayso tira ahaan waa inaynu xoojino tay ahaanna waa inaynu xoojino xarumo ahaanna waa inaan u badino sababtoo inta wax barata waa in kooban hadda marka waa inaan balaan soo samaysaan balaanka wax lagu dhisaa boohoodle muddada soo socota 2 sano 3 sano 4 sano meeqa iskuul secondary baan ka rabnaa arday intee leeg baan rabnaa inay dhigato hoose dhexe imisaan rabnaa taasay jaamacadduna ku xidhnaan doontaa balaankaasaana dadka laga gadi karaa marka insha allah jaamacaddana nugaal iyo east africa waxaan kula dardaarmayaa inay macallimiin u soo diraan sababtoo waxaan garanayaa salafora ka hadli doona laascaanood markii arday tayada laga sheegtay barnaamij bay u sameeyeen saa sheegi doona tirakoobka sanadkii labaad tira aad u fara badan ayaa waxay gashay safafka hore ee imtixaanaadka laga qaado dugsiyada sare marka aad baa u mahadsan tihiin waana farax geliseen ilaahay idin farax geliyo mid aan idinkula dardaarmay waxa weeye inaad u dhaqantaa dad wax baranaya
wax bartay wadogtihiin waddanka waa burburay maamul ma jiro waa inaad ka duwanaataan marka maxaad kaga duwanaanaysaa waa in akhlaaqdiinu ka duwanaato sida uu sheegay kayse waa aad baan ugu farxay ilma samatar baxnaan aad baan ugu farxay runtii waa cibaaro aad u wanaagsan taas waa inaad ka dhabaysaan hadalkiinna dhaqankiinna ficilkiinna muuqaalkiinna kulli waa inuu ka badanaado qofka reer miyiga ama qofka wax baran gabdho iyo wiilalba aad baa u mahadsan tihiin waa inaad takhasusaadka halkan ka jira waa idinku filaya takhasuska laga dhigo boosaaso ka laga dhigo garoowe ka laga dhigo laascaanood isla takhasuskiiba halkan laga dhiga ya marka uma baahnid inaad waalidkaa shida gelisid uma baahnid haddii takhasusaad kaloo